علي يا خي كعطوسة ديدبكي حرقها قوستا ديدي يا سيدي قوشا سيدي قلو قديلوذا دعاذيت كوادالي دورتا ذاك ويناذا مروقينا ديفيستا ديدبكينا ماريستا دنبالكيغ واباقي دفتيسو وقولي أنا وسان سلي هاي كحسن أهان دن سو كوبو waxaa looga bixi karaa aqoon hadaan aqoon jirin runtii wax horumar oo la gaarayo ma jiraan midda kale soo raaci karto waxa weeyaan iskaashi ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxa hadii ay ku roon yahay baday ciilka waa iskaashi la'aan sababtoo ah waxaad moodaa qof kasta oo Soomaaliya sidii uu reerkiisa iyo shaqadiisa u maamuli lahaa uu yaqaana laakiin waxa kala dhaxeeya bulshadiisa Soomaaliyeed ayaanay markaasi inta badan Soomaalidu fahamsaneen taas ayaa markaasi keentay in ciil badan ummadda Soomaaliyeed ay hadii ay ku roon yahay maxaa la dhahaa ay la kulmaan oo hooyo walba ama aabbo walba uu la gubanayo oo uu la ooynayo kaligiis arintaas daraadeed marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ummadda Soomaaliyeed ku gubaabinayaa inay wax bartaan haddaan tusaale yar idin siiyo xafiisyadan aan tagno maalin walba ee laga codsado ceyrta waxaa ka shaqeeya dad barta cilmiga socionomka la yiraahdo socionomkuna waxaa lagu bartaa wax ka yar 3 sano marka dadka ka liita manihi anaga laakiin waxaan u baahanahay oo kaliya in aan maxaa la dhahaa aqoonteena kordhino oo aan anaga gacanteena wax ku qabsano inaan cidna wax ka sugno looma baahna marka Soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabada looga dhagaa marka hadaan anagu dhulka iska qaadin cidna ga qaadaysa male intaas hadaan ku soo koobo waxaan jecelnahay inuu markaas walaalkay yar wax yar ku biiriyo hadii la yiraahdo ku soo noqon doona insha Allah dhalinyaro ma taqaana wadamo kala tagay marka aad baan horta u farxay runtii dhamaadka aad sameysay xoogaa waa neerada dejisay markii aan aragnay wiilka dhalinyarada ah ee doonayay inuu noqdo jurist oo doonayay inuu barto arrimaha sharci yaqaan inuu barto runtii waxayna gelisay hope intii hore waxaan dareeminay nooc mid ah maxaa la radaa hope rajo la'aan arinta su'aasha ku saabsan hadaan salaado wax ka sheeg horta runtii dhibaatooyinkan youtube ka dhacay iyo dhibaatada Stockholm ka dhacay anigu xoogaa lumihi wax badan kama ogi waxaan ka hadli doonaa arrimaha kuma saabsana waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka sheego magaalada Maalmo maadaama anigu hadda aan kuma filmeytiga ama xildhibaanka ahay magaalada Maalmo su'aal baan weydiinay markuu horeysa ma taqaanaan meesha ugu dambiga badan leh Sweden oo dhan hal meel oo la yiraahdo meeshaas ugu dambi badan ka dhacaan maalin walba yaa garan kara may meesha ugu dambiga badan leh Sweden oo dhan waxa weeye bridge-ka isku xira Copenhagen iyo Malmö bridge-ku waxa weeye meesha ugu dambiga badan leh Sweden oo dhan taasi waxay ku tusaysaa xaaladda ay ku jirto magaalada Malmö iyo saameynta leedahay magaalada Malmö waxa maalintii Copenhagen iyo Malmö u talaaba qiyaastii 15,000 oo qof dadka badankoodna ay yihiin dad ma taqaana u shaqo taga waxbarasho taga iyo waxyaabo arrimaha soo raaca laakiinse waxa crime-ka lagu isticmaalo oo dhan ama drugs ha noqoto nacas ha noqoto contraband ha noqoto hub ha noqoto waxa Norway la geenayo waxa Sweden oo laga isticmaalayo kulligood waxay soo maraan badankoodu bridge-kan isku xira Copenhagen iyo Malmö bridge-kaas faa'iido badan buu noo keenay runtii dhaqaale ahaan iyo siyaabo fara badan marka loo xisaabiyo laakiin rabshooyin fara badan oo ka jira magaaladan taasa u sababa marka waxaan doonayaa horta runtii inaad fahantaan xaaladda ku jirno oo marka saameyn weyn ku leh dhalinyarada ku nool Maalmo especially dadka Soomaalida ee magaalada degan taa markaan ka soo gudbo waxa weeye magaalada Maalmo
waxaa lagu qiyaasaa waxa degan 350,000 oo qof waa magaalada saddexaad ugu weyn Sweden laakiin waxaa lagu qiyaasaa marka saddex loo qaybiyo qayb in dadku ajnabi yihiin ama meelo kale ka soo jeedaan luqadaha ay ku hadlaan waxaa lagu qiyaasaa 150 luqadood inay kor u dhaafeen arrimahan marka laga hadlayo si positive ah ayaa wax looga sheegaa waxaa la isku raacsan yahay in arrintaas faa'iido weyn ay ugu jirto magaalada Malmo waxaan tusaale yar soo qaadan karaa xaflad weyn oo lagu qabtay magaalada Malmo oo Eurovision la yiraahdo tartamada heesaha ee Europe markii lagu qabanayay magaalada Malmo oo Europe oo dhan ay runtii ay magaalada Malmo yimaadeen looma baahan dad dabadanta laga keeno turjumaani waxaasa magaalada Malmo degnaayeen dad degan oo luqadaha wada garanaya marka faa'iido badan bay leeyihiin in dadku kala duwanaadaan ajnabiga fara badan leeyahay magaalada Malmo degan laakiinse dhibaatooyin way jiraan waxyaabo aan runtii ma isticmaalo kelmadda dhibaato problem isticmaala utmoning garamayo Soomaali waxa lagu raado utmoning waxa weeye arrin u baahan in xal la helo laakiin qodba sidii laga dhigay noqonaysaa dhibaatana way noqon kartaa faa'iidana way noqon kartaa marka waxa weeye magaalada Malmo dadaal u baahan marka waxyaabo badan baan hadhow ku soo laaban doonaa arrimahan waan sii gali doonaa insha Allah waxaan doonayaa inaan hortay saldhig yar oo fiican idin siiyo saad u fahantaan xaaladan ku jirno magaalada Malmo waxa weeye magaalada Malmo waxa lagu qiyaasaa dadku inaanay isdhexgal fiican sameeynin inuu ka jiro arrinta loo yaqaan segregation in ma taqaana dadku ay xaafado gaar ah degan yihiin dad ajnabiya xaafado gaar ah degan yihiin dad Swedish bismillaahir rahmaanir rahiim meeshaan laba iyo laba ahayd in soo fadhiisto laba iyo hal laga dhigay laakiin macluumaad waa ku aadaa waa ogtiin maahan okay horta waa in salaamay aada ugu faraxsanahay hooyooyinkeena meesha ka soo qayb galeen aniga su'aashaas la weydiiyay aad iyo aad arrin iyo qusayso waaye oo muddo 30 sano ah ma sheegaan da'dayda laakiin 30 sano adiga arrin qusaysay ahayd hadda aan kooka bilaabo sababta keentay arrimihii dhalinyarada ka hadlayna tii kale gadaal ugu soo noqon karna mid aan ka hadlayna waxa waaye saddex wax oo ani aan u arko ama ani aan ku dhex jiro ama aan taabtay midda koowaad waxa keenay in caruurteena maanta criminal hadday noqoto dilkan iyo familiadii in la dhaho hooyo keligeed ama aabba keligiis iyo wax macnaysa u binaysa ma leh aniga ahaan macnaha ugu weyn kow ilmihii sababta keentay oo gunta ah waxa waaye inay caruurteena especial wiilasha intay dhacday laba gabdhood ku jirtaa la dhahay taas adinkaa dhamaysan doona waxay inta kale wiilal u noqdeen labada gabdha ee u noqdeen taas idinkaa su'aalaha aan weydiin doontaana aan ka jawaabi doona laakiin meesha waxyaala idin sheeg koow arrintan waxay ka bilaabatay dadkii way soo qaxeen waddan ay imaadeen waa ogtihiin ilmaha annaga intii afka aan baranayn waqti ay qaadaneen ilmihii waa naga hormareen afkii ay barteen waddankii ay la qabsadeen annaga weli meesheenii joognaa Soomaalida dad aad u aqal badan waay maahmaah iyo maxaan ku iraahdaa isha gabay iyo nin naga badiyay malaha adduunka dhan isku dad aqal badan aan nahay runtii laakiin markasta waa inaan fiirinaa gadaal hooyooyinka iyo aabaha waddanka imaaday dhibaatooyin badan dadkoodii ka soo tageen dhibaato badan oo morally ah maskaxiyan ah ku dhacay markay inta imaadeen maxaa dhacay markii caruurtu way naga hormareen way naga carreen maaha inaa naga tagteen kuwa inta fadhiya xataa ku jira kuwa inaa naga cararteen maaha nacam waa naga hormarteen waa yartiin maskaxdii haysteen afkiyaa barateen waalidka qaladku sameeyaan ku shida marka oo ilmaha dhibaatada u keen waalidkii waxay isticmaaleen caruurtii wariyaa hebel cali soo bax hooyo bangigay la tegay ii turjo isbitaalkii u wadane waraada gaalkaana tacbaanka joogay bal kaal igala hadal gaalkii la hadlay ilmihii maxay dareemeen marka maqto maxay heleen waxay heleen xog gurigii inay ay aabba ayagana kiin dhinacooda waalidnimadii waa naaqustay
bangiga inta kugu jirto waa ogyahay صح markii bangiga u wadatay hay iskoolka yaa ku soo haray iskoolka waraaqa loogu soo riday boorsadii yaa ku akhriyahay warkaal bal maanta maxay soo dhigtay macallimadii uu fiiri asaga loo soo qoray ma imaan neerboraan dhahaada aad u yaryahay aabaha iyo habartaha ibaadaan walaa ud fligtina la aada banaanka loo bixiyaa moos iyo sogad abarti waa baxday moos ay soo xaabisay waxay soo xaabis waa ugu riday marka iskuuladii maxay ayaga aqligooda gal waxa waay war waxaan waalidkan Soomaalida 10 jeer carabkooda ku dhacday kama warqaba carruurtooda anaga carruurteena wax ka warqabnaa marka mashaakilkii ugu horeeyay iyo jabkii ugu horeeyay wuxuu naga gaaray carruurteena aniga meeshan waalidka ahaan lahaa ayga waalid ay noqday markaan wax kasta u dirsada carruurtii aniga baawarkayga hoos u dhacay maxay bilaabeen ilmihii inay xoog yeeshaan yaqaway banaanka u baxa soo noqonaa hayaal ciyaar hebel af Swedish marka macalinku dhaaya macalinka runtiis waaye in qofka hadii anaga aan rabno intii baxday way baxday laakiin inta hadda oo soo koraysa ilmaha raasto been xataa buuq qaaday akhri ha fahmin xataa daar ha ku arkay ilmaha adoo wax aqrinay taasa horta jabka weyn noo keentay intii naga baxdo la toogtay iyo intii lagu ka dhaawacmantay halkaas naga aadeen midda labaad ku soo hartay dawladda laftirkeeda inay dhahaan ma aha iskuulada rasus fiican ma jiro iskuulada iyo mid maskaxeed qofkuna waa asaga inuu isku tashado inaad bani aadan meel u fadhiin waxaan aad uga soo horjeedaa aniga horta barnaamijkan ceyrta la yiraahdo hadii ay ku roon yahay wadankan lagu dadka lagu siiyo qofka markuu cusub yahay waxa fiican in la kaalmeeyo 6 bilood kadibna uu noqdo qofka qof dhaxgala bulshada oo shaqaysta oo aanu ahayn basiif ama markaas qof mar walba warqad cagaaran inta buuxsho hadii ay ku roon yahay inuu markaas xafiiskaas geeyo horta waxaan aad idinku la talinayaa idinkana codsanaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaad noqotaan dad isku tashada oo wax barta shaqaystana sababtoo qofku markuu shaqaysto ilmihi xataa markaan dib ugu soo noqono aabaha oo kala haya iyo hooyada oo kala haysa ama wax baranaysa ama shaqaysanaysa markay arkaan ilmihi waxay noqonayaan ilmo markaasi masawir fiican arkaya marka ilmihi waxay noqonayaan ilmo proud ah waxyaabaha Soomaalida ilmaheeda lagu bahdilo hadaan iskoolaadka idinkaga sheego waxa kamid ah laba shay aabaha cawska cunaa hooyadan hadii ay guru ceeri qaadata aabaha cawska cunaa waxa ku dagaalamay wiil kamid ah wiilasha Soomaaliyeed iskuulkan Barnardin waxa ku yiri niman dhalinyaro oo Carbeed waana runtood meel baarlamaanka ay u baxsheen oo la yiraahdo xaafadaas annaga aan diganaho baarlamaanka loo baxshay ayay niman badan oo Soomaaliyeed inta anu qof gaar ah inaan wax ka sheego ma jecli laakiin xaqiiqda jirta in la sheego way fiican tahay Soomaalidu waxay u badan tahay dad caadifiin ah hadii wax loo sheego isla markii waa la boodaan laakiin wax dhameystir leeyahay oo ay leeyihiin male hadaan u soo noqdo labadaas arrin ceyrta iyo hadii la gurno aabaha cawsku cunaa waa laba mashaakil ee Soomaalida haysta waxaan looga bixi karaa san idin sheeg iskaashi tusaale waxaan leenahay ilmo badan dadka Soomaalida ma sha Allah waxa weeyaan ilmo badan ay dhalaan waxaan u geynaa ilmaheena maalin walba doogisyan geynaa aqoonti waa leenahay dadkii way joogaan wax ka shaqeyn lahaa hadii ay guro doogisyada nidaamkii aan u mari lahayn cid aan u kaashano waa haysanaa laakiin waxa aan kari laanahay ka Soomaali ahaan annaga intaan isku tashano inaan gabdhaheena iyo wiilasheena aqoonta leh inaan shaqaalaysiino oo aan sameysano doogisyo inaan sameysano iskuulo inaan sameysano dukaamo dadka ugu hilibka badan ayaynu nahay basmatigan dadka ugu badan ee gata Soomaalida way dukaan Soomaaliyeed maalmo ma ku jira ma leenahay dukaan Soomaaliyeed maxay ku dhacday markii inaan dukaan Soomaaliyeed yeelan weyn maxay ku dhacday inaan yeelan weyno doogis Soomaaliyeed
horta dhowr qof baa hadda noo soo yeeriyey anugu dad kaloo aad fara badanna waan soo yeerin karaa way jiraan dad fara badan oo horumar sameeyey mataqaanaa meel fogna runtii ka gaaray bulshada waxaan u baahannahay dadkaas inaan si fiican u calaamadeysano oo aanu ka dhigano fair build tusaale fiican inaan sameyno oo dadkeena wanaagsan ee wax fiican qabanaya inaanu mataqaanaa muujino sheegno hadda wadamadan kale wax naga fiican yihiin waxaad moodaa markuu qof wax sameeyo aad baa loo bunbuniyaa biladaa la siisiiyaa marka inaguna taasoo kale inaan sameyno weeyi waxaan doonayaa inaan hal arrin oo kale aan xoog u calaamadeeyo oo aan marka horena yara sheegay oo ku saabsan arrintan ah Mongfald sheekeen haddaan iga sheekeeyo anigu hortay markii u horeysay aan siyaasadda soo galayay waxaan ka bilaabay xaafad magaalada Maalmo markii hore hadda 5 xaafadood baa laga dhigay laakiin markii hore wuxuu qaybsanay 10 xaafadood xaafadda loo yaqaan Centrum ayaa waxaan ka ahaa Stastels Nimdaman xildhibaan xaafadeed walibana waxaan ka ahaa Erseter waa markii u horeysay aan xil qaado marka xilkaas ma ahayn xil shacabku ii doorteen xisbiga ii doortay marka 2010 ilaa 2014 baan fadhiyay waxyaabihii ugu horeeyay ee aan bilaabay waxay ahayd wiilam saaxiib nahnay oo la yiraahdo Sidaat oo xaafadan ku koray ku dhashay koray ayaa wuxuu markaa sameynayay jaamacadda Lundu dhiganayay waxaan wax ka qorayay dadka ka shaqeeya komuunka u shaqeeya xafiisyada komuunada u shaqeeya waliba wuxuu aad u fiirinayay dadka markaa khiifka ama mas'uuliyiinta marka imisa ajnabiya imisa Swirisha ayuu qoraal ka sameynayay ma qiyaasi karaysaan inta ajnabi ka ah bulshada hadda xafiisyada magaalada maalmadan qaadano inteeba ajnabiya mas'uuliyiinta ka hadlayna shaqaale caadi kama hadlayno ma qiyaasi karaysaan number inteed ku qiyaas lahayd ogaada isla markaana dadka ajnabi wax lagu qiyaasaa inay gaaraan 30-40 cagacageenayaan oo ay 50 u dhow yihiin asoo dadka ajnabiga ma kala xisaabiyo saas numberkaasi ka yihiin bulshadii marka la eego xafiisyada mas'uuliyiinta may gaareen 4% marka aanu waxaan aaminsanahay marka arinta horta waxa weeye macno badan baa ku fadhiya mas'uuliyiinta horta koow waa dadka shaqaaleeya marka qof la shaqaaleynayo mas'uulka shaqaaleynaya shaqadan waxa la isku siiyaa 60-70 xiriir baa la isku siiyaa macnaheedu waxa weeye qof mas'uul meel markuu ka shaqeeyo dadku shaqaaleynaya wadadu yaqaano inta badan marka waxa weeye hadana dadka mas'uuliyiinta aanan ka dhex muuqan inagii waa adkaanaysa bulshadiisii lagu soo dhexgelin lahaa waa adkaanaysa in shaqo la helo waxa adkaanaya marka arintii uu noo sheegay macalinku ay mataqaan ahayd in waalidku ka lahaan calaamadaha ardayga lagu garto waxa kamid ah inuu hadii ay ku waxbarashadiisa aysan fiicnayn markuu anugu ku jiro kalaaska saddexaad u fiirsadaya hooyo walba ama aabo walba si fiican u maqal anuga hadii uu ku jiro kalaaska saddexaad oo aanu aqoonin isku dhufashada u fiirsadaya hadaanu anugu aqoonin isku dhufashada laga bilaabo 1 ilaa 12 anugaasi wuxuu u baahan in xoog loogu gurmado xoogna loogu caawiyo maxaa yeelay furaha waxbarashada waxa weeyaan xisaabta hadaadan gurigaan furo u haysan soo ma geli kartid waxbarashada meesha laga helo waxyaabaha practically oo aan hadda idin sheegaya ayay ka mid tahay waa wax la taaban karo anuga markuu yaqaano xisaabta isku dhufashada laga bilaabo 2 wax weyn ma 2 ilaa 12 oo uu ku guuleysto markuu dhiganayo kalaaska saddexaad anugaasi waxay 100% u badan tahay inuu ku guuleysto waxyaabaha kale ee iskoolka lagu dhigto haday noqon lahayd science haday noqon lahayd hadii ay ku run yahay waxbarashada kale oo dhanba laakiin markaad aragto anugaaga markuu kalaaska saddexaad dhiganayo wax lagu cabiri karaa ayaa jiro oo aanu aqoonin xisaabta isku dhufashada anugaasi wuxuu kaaga baahan yahay ka waalid ahaan inaad xoog ugu gurmato oo aad caawiso adiga hadaadan bari karin inaad geyso fureeninada faraha badan ee Soomaaliyeed ay leeyihiin fureenin walba wax buu qabtaa habku wax u raadsanayay meesha wax ka keenayo asagay hadii la ku u gaartay laakiin kulligood waxbay qabtaan way fiicnaan lahayd in bulshada oo dhan inay leedahay hal urur oo lagu midaysan yahay ururkaasina uu leeyahay maxaa la dhahaa qaybo badan
dalad weyn uu noqdo ururku dhinaca waxbarashada inay markaasi qayb ka mid ah daladaasi dhinaca isboortiga dhinaca arrimaha bulshada waxyaabahaas oo dhan way fiicnaan lahayd laakiin ma jirto hadda laakiin future waxaan rajaynayaa inay imaato marka macni waxaan aad idinku adkeynaa in haddii aad aragtaan in cunugu markuu dhiganayo kalaaska saddexaad haddii aad uusan ku guuleysan maxaa la dhahaa isku dhufashada inaad markaasi u gurmataan midda labaad waxaan idinku dhiirinayaa inaad tagtaan wada hadalka loogu yeerayo maaragtay waxbarashada ogeysiinta la ogeysiinayo laannu haddii aadan canugaaga la socon heerka waxbarashadiisu marayso markuu macallinka kuu yeero ama aabbuhu tegin ama hooyadii aabbaho isla socda aysan tegin waxaa adkaanaysa in canugii wax loo qabto marka micnihii waxaan aad idinkugu gubaabinayaa inaad xiriir fiican la samaysiin macallimiinta iskuullada iyo haddii la ku ron yahay iyo inaad markaasi dadaashaan oo aad ilmihiina u gurmataan inta ay haddii la ku goori goortahay waa mahadsantihiin meesha aan ka rabay oo laga hadlan waxa waaye ilmaha problemka ugu weyn waxa waaye waalidka iyo socialka iyo iskuullada ma wada shaqeeyaan hooyo walba cabsi ay qabtaa iyadoo og xataa cunugeeda inuu dhib ku jiro waxay isleedahay haddaa intaa baxdo aad socialka u tagto oo aad weydiiso ama aad tiraahdo nacam dhibkaanaa jira ilmahaada kale amay saameeyaan taasna waxaa dembiga iska leh dowladda sababtoo ah waxaa loo baahan yahay hooyada inay dareento laftirkeeda wadanka ay degantahay lagu leeyahay Swedish aan ahay iska ahaw ma aha laakiin waa inaan dareensanahay inaan aniga hubo wixii igu imaado inaan information fiican ka haysto haddaan information ka haysan hadda naagta dariskayga waxay qabtay iyo waxay inay jiran tahay iyo haddaan salaameyn ay dhahay ugu dhufanayso laakiin haddaan ogahay inay jiran tahay oo maalin walba ay aad dhakhtarka kaniiniyaal soo qaadato albaabka markay furto kayga waa xiran ilaa ay hiiska ka raacdo marka waxa waaye waxaan aad iyo aad ugu baahannahay waxa waaye haddii aan rabno inaan carruurteena inta dhiman aan survival gelno dadka iskuullada ka shaqeeya socialka dowladda nimanka kor fadhiya inay dhaqanka annaga waa nimid wadankii xildhibaanka waa nimid wadankii laakiin annaga keliya ma aha inaan annaga dadka barano waxay tahay annagana ina la barto meesha ugu badan aniga waa ogtiin organizationkan Somaliska Paraply organizationka labadii sano ugu dambeysay shaqadeeda xataa ayadan ku gabay ayadan u shaqeeya iskuuladan tagaa maalin dhaweyd naag oo iskuul oo directooradan ahay gutri eslof waxaa ilmaha midda kaleetane ilmaha oo noqonaya aggressive-ka ilmaha noqonaya maxaan ku yidhahdaa oo jidka ka baxay waalidka keliya ma aha bulshada waaye bulshada waa xagee waa iskuullada cunugaa lagu soo horfariisiyo waxay tiri cunugaan aggressive waa cunug aan af soomaali maahana af kale aqoon oo cunug kale ku soo booday oo cunugii kale af Swedish ku hadla oo yiri kana kunufa ku sameey dhag naagta iiday dhageysatay turjubaan ugu meeyay wax afka saay ugu meeyay waxay korka ka saartay inay waxay tiri wuxuu ka imaado flipping for learning aabihiisa banbana waa iska sheegaynaa waxaan rabno oo ah inaa balaay lagu soo dhacday jin lagu soo waa la qoray safood cunugeena oo wax yar uu sameeyo dee boobaarka hono alahana inuu meeshii ay ka timid oo waxaa leeyahay dagaal ay ka timid wadda dagaal ay ka timid hadda wiil yar maalin dhaweyd naag weyn oo karatoorada wiil karatoorada wadanka waa ogtiin waa xooga ugu badan wadanka waa waxa celin kara qofka xataa haddii uu dviisin la siiyo waa karatoorada iyo kuwa bulshada la dhahaa waxay tiri yo batahan iyo shuug on okay jag träffat många flyktingar. Okej, jag förstår. Iskolka waa iskol qaxooti waa kii afka lagu baranay laakiin labadan wiil amal weligay ma arkin waxaan dhahay ma wareysatay reerka intee ka imaadeen
way dhici kartaa inay aggressive ahaayeen marka waxaan dhahay ma wareysatay waa see u wareysatay xero qaxootiga ka imaan marka waxaan dhahay dhegeyso ilmaha aad la kulantay adiga waa ilmo hadda Falastiin oo kale meelaha kale ka imaadeen dadkii guryahooda jooga jugti dhacday waa la soo kala cararay xero qaxooti ma ka imaan laakiin ilmahan ay soo qaadanay aniga xataa qaladaan u arkaa wadankan inaan ka wada laga hadlo arintaas aad muhiim u tahay marka ay soo qaadanayaan food flictinka hadda problemka ugu weyn oo nahay inta ilmood oo la qaatay waa ilmihii la soo qaatay xirooyinka laga soo qaatay afarta ilmood oo hadda naga maqan oo viishaan badan oo hadda gacanta noogu jirto waa ilmihii la soo qaatay ilmaha markii ay ka soo qaxaan guryahooda Sacuudiga laga keeno ama Italy ay ka soo galeen ama Soomaaliya ay ka soo dad guryahooda ka imaadeen iyo cunug qaxootiga ka imaado isku dabeecad miya